sheekh ilmo aan quraanka u dhameeyay waalidkiisana igula heshiiyay marka aan quraanka u dhameeyo inuu isiin doono lacag gaaraysa $500 kadibna waalidkii ilmaha uu la baxay isagoo aan isiin lacagtii uu ii ballan qaaday arrintaas xukunkeedu muxuu noqonayaa laba mas'ale ku xidhan tahay horta in laga hormariyo midda koowaad quraanka baridiisa wax ma lagu qaadan karaa haddii jawaabtu haa noqoto oo madhab culimada qaar ka mid ay qabaan kadib waxaa imaanaysa macallinka iyo dadka uu carruurtooda quraanka baraya caqdiga iyo heshiiska ay galeen waa noocee in la tawsiifiyo ama la takyiifiyo bimacnaa macallinka iyo waalidka waxa dhex maray muxuu yahay iyadana caqdigaasi waxay ku sheegaan fuqahaadu inuu yahay caqdu ijaara waa macnaha wax weeyaan waa shaqaalaysi yani ujuro wey haddii marka ilmuhu uu macallinku wax ku barayo ujuro ku barayo macallinku xaqiisa wuxuu leeyahay markuu sameeyo camalkii lagula heshiiyey haddii sharti ay ahayd xoolaha in lagugu siinayo markaad ilmaha intaasoo juz u dhammayso ama markaad u dhammaysood qur-aanka u kamisho markaasaad mudanaysaa xaq sida dadka kale la shaqaalaystaba markay shaqadii dhammeeyaan ay xaqooda u mudanayaan haddii ilmaha aad qur-aankii u dhammaysay oo dankaaga ka soo baxday hawshii lagu dirsaday waalidku inuu ilmaha iskala tago xaqaagana dafiro ama ku siin waayaay waa dulmi waxaana tilmaamaya xadiidkii nabigeena sallallahu alayhi wasallam marar horena aan sheegnay xadiithul qudsiga ahaa bukhari baa soo saaray allah wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala halaaatun ana khasmuhum yowma alqiyaama waman kuntu khasmahu khasamtuhu saddex ruux maalinta qiyaamada anigaa ku doodaya anaa haysta ciddii anigu aan qabsadana waan ka rayn oo marnaba guulaysan maayo saddexdaa waxaa ka mid ah rajulun ista'jara ajiiran fastawfaa minhu walam yuufihi ajrahu nin dad shaqo u dirsaday shaqadii markay u dhammeeyeenna xaqoodii aan siinin saddexdaasuu ka mid yahay haddana kaga daranaya waa qur'aan oo waxa ilmaha laguu baray waa diin way sii culus tahay markaas marka waa in waalidku wuxuu macallinka kula heshiiyey waa inuu gudo macallinkuna wixii lagula heshiiyey waa inuu ka soo baxo markaasuu xaqiisu laazimaya uu yeelanayaa caqdiga iyo heshiiska iyo mucaamaladuna waa mucaamalo ijaaro waaye axkaamtii ijaaradu lahaan jirtay ayay qaadanaysaa wallahu aclam